shirkadda Telesom ayaa tartan kubadda cagta u qabatay shaqaaleynaha shirkadaha Telesom Group. Tartankan ayaa ah sanadkii afraad oo xidhiidh ah. Tartankan ayaa ah mid kor loogu qaadayo isdhexgalka dhalinyarada shaqaaleynaha shirkadaha Telesom Group. Tartankan ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kala ah Dar es Salaam Bank, Daweeye, Telesom, shirkadda leydhka ee Tech, Sad, Taj, Kabsan iyo Somgas. Tartankan ayaa waxa hore u soo qaban jiray walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel oo ku maqan dalka Hindiya xaalad caafimaad. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaynu halkan joognaa furitaanka Telesom Shabeel Cup koobkan oo socday muddo 4 sano ah oo maanta ay tahay markiisii afraad oo xidhiidha ayaan maanta halkan ku furi doonaa waxa koobkan ka soo qayb gali doona shaqaaleynaha kambaniyada hoos yimaada Telesom. koobkan waxa bilaabay walaalkeen Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali oo maanta xaalad caafimaad u jooga dalka Hindiya. walaalkeen waynu ducaynaa in Ilaahay shaafiyo. koobkan waxa ka soo qayb galaya 8 kooxood oo kala ah Telesom, Dar es Salaam Bank, Somgas, qaybta leydhka ee Tech, Sad, Taj, Kabsan iyo Daweeye. dhammaan 8 kooxood waxay hoos yimaadaan Telesom Company amba ay ka farcameen Telesom Company. waxaan halkan uga mahadnaqaynaa shirkadda Sagajad oo ka qayb qaadatay qabanqaabada Telesom Shabeel Cup ee 2020. waxaan mar labaad halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo garatay in shaqaalaheeda u qabato koob ay isku bartaan shaqaalihii oo sii baahaya ay meel inta isugu yimaadaan koob ku wada ciyaaraan oo ay sanadle noqoto. waana arrin mudan in lagaga daydo oo aan soo jeedinayno inay u noqoto tusaale kambaniyada kale wadanka ka jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan bartaan uga mahad celinayaa shirkadda weyn ee Telesom oo tartan joogtaysa oo 4 sano qabatay uguna tala gashay in shaqaaleynaha oo maadaama shirkaddu tahay shirkad aad u ballaaran in ay shaqaalaha isbarto iskuna keento waan ku bogaadinayaa shirkadda Telesom. waxaan kaloo iyaguna mahad gaar ah u jeedinayaa maxaa ahaydey walaalkeen Yusuf iyo walaalkeen maxaa ahaydey Saleebaan oo iyaguna tartanka soo qaban qaabiyay oo si gaar ah ugu mahadnaqayo maadaama yihiin dhalinyaro haldoora markasta la jecel horumarka kambaniga shirkadda Telesom. aad baan u bogaadinayaa labada inamood. maxaa ahaydey waxaan kaloo iyaguna bogaadinayaa maamulka shirkadda Telesom oo gartay in ay dhiiri geliyaan shaqaalahooga oo ay dhammaan agabka kabaha diriiska qalab sports oo dhan inay ka maalgeliyaan una qabtaan tartan joogto 4 sano. shirkadaha Soomaalida gaar ahaan kuwa Soomaaliland waxaan leeyahay ku dayda dariiqa ay jeexday Telesom in ka daba gala. waxa kale oo isaguna aan halkan aan uga ducaynaynaa walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel oo isaguna maxaa ahayd tartankan ninkii aasaasay ah haddana aanay halkii Telesom kaga hadhin inuu magacii Cabdirasaaq sii jiray wali oo markii afraad ay oo xiriir ay tartankan joogteeyaan. Cabdirasaaq Shabeel waxaan leeyahay caafiyo. Cabdirasaaq Shabeel kuma koobneen uun horumarinta maxaa ahayd businesska waxa kale oo qayb ku lahaa maxay horumarinta caasimadda sida wadooyinka masaajidada. walaalkeen Cabdirasaaqna waxaan uga barayaa inuu Ilaahay caafimaad saraacan siiyo. anaga oo shirkadda Telesom anaga oo shirkadda Sagajadina waxaanu qayb ku lahayn tartanka waana bogaadinayaa shirkadda Telesom. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaah rabbil caalamiin. aniga ku hadlaya afka maamulka shirkadda Daweeye waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maanta madashan quruxda badan ee soo agaasimtay shirkadda weyn ee Telesom taas ay ugu tala gashay shaqaaleynaha shirkadda Telesom ay isku bartaan. waxa weeye madashan maanta oo kale shirkadda Telesom barnaamij ciyaareedkan ay soo bandhigtay shaqaalaheeda waxa weeye ugu tala gashay in ku dhiiri geliso waxa weeye kulankii afraad ama sanadkii afraad waxa weeye la soo qaban qaabiyo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxa weeye koobkan maanta waxa weeye ciyaarayaan labada kooxood ee ka kala socday shirkadda Daweeye iyo Dar es Salaam Bank. waxa weeye waxa soo qaban qaabiyo walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel. runtii waxa weeye waxa uu daarnaa kulan wax badan dhalinyarada ay ku lafa gurto in waxa weeye ay kaga faa'iideystaan waxyaabaha jimicsigu ka midka yahay aad iyo aadka loogu baahan yahay dhalinyaradu ma taqaana maskaxdooda iyo garaadkoodaba kor u kobciya. runtii anagu ka dhow yahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay maanta kulankii koobaad ee ugu horreeyay ee aanu ka soo qayb galno. waxaan rajaynayaa inaan kulamo badan sidoo kale insha Allah ka soo qayb gali doono. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa insha Allah ciyaartan quruxda badan. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Telesom Company oo qaban qaabisay koobkan Telesom Shabeel Cup. ujeedada koobkani waxa weeyaan isdhexgalka dhalinyarada shirkadda ka shaqeeya oo marka dambe sii badanaya. dhalinyartaas oo maxay ahaydey muhiimadu tahay in isdhexgalaan wada ciyaaraan isla fahmaan. Telesom Shabeel Cup afartii sano ugu dambeeyay xiriiraba ayuu ga socday. laba kamida bankiga Dar es Salaam Bank baa ku guuleystay. haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah Abdullaahi Kariim inaan mar saddexaad ku guuleysano waan ku faraxsanahay inaan mar saddexaad ka soo qayb galno. alxamdulillaah Ilaahay baana mahad iskale. sidoo kale waxaan u ducaynaynaa walaalkan Shabeel
oo qabanqaabada iyo maxay ahayd fikirkii ugu horreeyay iska lahaa qabashada koobkan ilaahay isagana ha caafiyo waxaan rajeynayaa inuu koobkan si wanaagsan oo qiimo badan noogu dhamaado assalaamu calaykum